ururka dugsi oo ka dhisan wadanka Holland ayaa deeq raashin gaarsiiyay bukaanada ku jira cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Deeqdan oo soo diray ururka dugsi ayaa wuxuu ugu talagalay inay ka faa'iideystaan bukaanada ku jira cusbitaalka oo ay ku jiraan bukaano aan heli karin cunooyin ay ku cunaan daawooyinka. Deeqdan oo ururka dugsi soo diray ayaa waxay u wakiisheen Cali Cabdinuur Xaashi ayaa wuxuu guddoonsiiyay Dr. Cabdi Maxamed Buraale. Dr. Cabdi Maxamed Buraale waxaan doonayaa inaan ku wareejiyo deeq isugu jirta raashin iyo lacag oo ay soo direen hablaha ururka samafalka ee dugsi ee wadanka Holland oo ay soo wakiisheen deeqda soo gaarsiiyo Hodan Dirir Jigaxay iyo Sahraad Diriye Gamadiid waxay soo direen $136 wataan ku heshinay raashin iyo waxa aan soo qaybino sidaa darteed waxaan doonayaa inaan kugu wareejiyo 10 kiilo bariis ah 20 kartoon oo pasta 10 kartoon oo timir ah 5 kintaal oo haruur ah iyo $300 oo ah adeegii lagu soo adeegi jiray bukaan jiifka qaybaha kala duwan ee isbitaalka Laascaanood sidaa darteed waxaan u mahadnaqayaa hablaha ururka samafalka dugsi iyo hablaha qurba joogta wadanka Holland oo dhan oo deeqdan soo ururiyay anigana ii wakiishay inaan ku soo gaarsiiyo anaan maanta kugu wareejiyay waxaan leenahay Ilaahay khayr ha idin siiyo oo idinka abaal mariyo kuwa soo ururiyay iyo kuwa soo gudbiyay iyo qolina gacanta ku haysta isbitaalka bukaan jiifka ku dhaqaaleynaysa lacagtaasi waxay dhammayd $1,136 isaguna halkaasi ka hadlay Dr. Cabdi Maxamed Buraale oo halkaasi lagu guddoonsiiyay wuxuuna sheegay inay uga mahad celinayaan ururka dugsi deeqdan uu soo gaarsiiyay bukaanada ku jira cusbitaalka guud ee magaalada Laascaanood. Cabdi Xaashi oo tawakal madax u ah wuxuuna soo gaarsiiyay hadiyadii ay u soo direen bukaan jiifka cusbitaalka Laascaanood labada gabdhood ee ururka dugsi Hodan iyo Sahraad una soo gaarsiiyay lacagtii oo u kala qaybsanta mid uu raashin ku soo galay iyo mid uu cadaan ahaan noogu dhiisay wixii soo saaray baahin iyo caano iyo loogu qado aad iyo aad u mahadsan yihiin gabdhaha jooga Holland waan u mahadnaqaynaa wayna soo xuseen Ilaahay kaalintii noo galeen kaalinta ka wanaagsan haw galo oo Ilaahay si nooga farxiyeen iyagana Ilaahay oo farxiyo waa mahadsantiin xaaladda balka warnaada bukaanada sida yihiin bukaanka cusbitaalka waxba raashin waanu hayno badnayn waa iska fiican laakiin waa soo gabdho wax yar raashin soo yareeyanay dhawaan waxa dhici karaysa inaan waxba u weyno laakiin had deerto raashinkan soo gaaray ilaa 2 waa u wadi karayna hadii Allah ka warramo dhibaatooyinka sariiraha xagga sariiraha ka war cusbitaalka waa sariiraha qaar badan baa burburay sariiraha cusbitaalka gogoshi way go'go'day way dhamaatay gogoshi gooyaashii iyo bustayaashii iyo Mareykanooyin cusbitaalku badanaa mabale waa kaliya Mareykanooyin leh midna pediatriyada qaybta carruurta Mareykanooyin iyo gooyaal iyo xamal furaash iyo sariir bawtaal qaybaha kalena waa sidaas oo kale marka xaggan qalabkii cusbitaalku aad u yiri sida runta mar walba loogu ballan qaadaa laakiin wali waxa ururka dugsi waxa ugu weyn oo ka codsanaynaa waxa weeyaan inay raashinka noo wadaan intay noo wadi karayaan talabaadna inay naga caawiyaan xagga shaybaarka cusbitaalka shaybaarkiisa shaybaar waxaan daciif aan leenahay oo aan qiimo badan ku fadhiin hadda wadanka waxa la isticmaalaa shaybaarro casri ah la isticmaalaa oo computerizer kuwi ma haysan marka sidii noogu gadi lahaayeen noogu soo gadi lahaayeen cusbitaalada computerada Hargeysa lagu gadaa iyo Boosaaso waa lagu gadaa wala soo gadi karaya shaybaar dhan oo biochemistry iyo ESR count-kii blood cell count iyo wax walba sameynaya oo computer oo dhiigga baa lagu shubayaa hor ka soo saaraya jawaab Abdi Kariin Nolol Somali Channel TV magaalada Laascaanood.